Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad ii salaamay meel walbo aad joogtaan. Haddii ay tahay maalintii kuugu horeysid oo aad janaalkaa soo booqatid, please waxaan ka codsanayaa inaad saartid subscribe, like, comment si aanakana dhiirigelin noogu noqoto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay, maanta maxayna qaadan doonaa? Maanta waxay qaadan doonaa hot conversation, wada sheekaysi kulul. Hot conversation, wada sheekaysi kulul. Maadaama markii aad qof aad hortaagan tahay oo aad doonaysid qofkaas inaad kululeysid, waxaad u baahan tahay ereyaal iyo jumladooyin isna u baahan tahay soo maahan, oo aad qofkaas ku ataagaraysid, macnaha ku weerartid. Maanta waxayna qaadan doonaa oo waan ka bogsan doonaa. Please haddii ay maalintii kuugu horeysa tahay, subscribe, like, comment si anakan dhiirigelin noogu noqoto. Okay, let's start our conversation. A iyo B ayaa wada sheekeysanayo markan. A iyo B ayaa wada sheekeysanayo. A ayaa bilaabaya hadalka, wuxuu leeyahay I used to hear if the children are impolite, they wink at their grandmother. I used to hear, waxaan maqlay, if the children, caruurtu, are impolite, markay akhlaaq daran yihiin, they wink at their grandmother, waxay u iljibiyaan ayeeyadooda. Waxaan maqlay caruurtu markay akhlaaq daran yihiin waxay u iljibiyaan ayeeyadooda, ayuu leeyahay. B ayaa soo booday, waxa uu leeyahay every day, maalin waliba, you carry heavy books, waxa aad sidaa buugaag culus, and you know nothing, waxna ma garanaysid. So sidaa daraaddeed, are you dull plus dull, waxa miyaa tahay dimin lagu daray. Every day, maalin walba, you carry heavy books, waxaad wadaa buugaag culus, and you know nothing, waxna ma garanaysid. So sidaa daraaddeed, are you dull plus dull, dimin lagu daray miyaa tahay. Dull plus dull waa dimin lagu daray macna. Okay, A ayaa soo booday, if you insult me, haddii aad i caysid again mar kale, I will teach you, waxaan ku bari doonaa unforgettable lesson, cashir lama ilaawaan ah. If you insult me again, haddii aad mar kale i cayso, I will teach you, waxaan ku bari doonaa unforgettable lesson, cashir lama ilaawaan ah. Forgettable lesson waa cashir lama ilaawaan ah. B ayaa qaadanaya marka, waxa uu leeyahay I am eager for you, waan ku hamuun qabaa. I am eager for you, waan ku hamuun qabaa, oo waxaan barbaa inaan wada sheekaysi kugu sameeyo xiis qabaa macna. So sidaa daraaddeed, get up, soo toos, and don't afraid of me, ha iga cabsanin. So sidaa daraaddeed, get up, soo toos, and don't afraid of me, hana iga cabsanin, ayuu leeyahay, ha iga baqin. Because of, sababtoo ah, I am human being like you, waxaan ahay bini'aadan adiga oo kale ah. Because of, sababtoo ah, I am human being like you, waxaan ahay bini'aadan adiga oo kale ah. Human being waa bini'aadan marka. A ayaa qabsanaya, wuxuu leeyahay what a love child that you are, alla maxaa tahay cunug wecel ah. What a love child that you are, alla maxaa tahay cunug wecel ah, ayuu leeyahay. Love child waa wecel marka. Love child waa wecel. Cause maxaa yeelay ayuu leeyahay you are speaking, waxaad hadlaysaa as a love child, sidii wecel oo kale. And the love children, caruurta wecelada ahna, speak, waxay u hadashaa like this, sidaan oo kale, ayuu leeyahay. Cause maxaa yeelay you are speaking, waxaad hadlaysaa as a love child, sidii cunug wecel oo kale. And the love children, caruurta weceladana, speak, waxay u hadashaa like this, sidaan oo kale. Maxaa la ba'saday. B ayaa soo boodayo, wuxuu leeyahay first, before you abuse me, intaadan i caynin ka hor, try to speak like a gentleman, inaad isku daydo inaad u hadasho sidii qof akhyaar oo kale. First, before you abuse me, intaadan i caynin ka hor, try, isku day, to speak as a gentleman, inaad u hadashid sidii qof akhyaar oo kale. Cause maxaa yeelay you are speaking, waxaad u hadlaysaa like a guy, sidii khaniis oo kale. Erayaas aad ku khaldin, gay iyo guy ayay keliyihiin. Guy waa sida oo dadka ay isticmaalaan oo caadiga normaalka ah. Gayna waa khaniis, ayuu leeyahay, like a gay, ayuu leeyahay. And I am, so sidaa daraaddeed, I suspected you, waan bagaa shakiyay, are you gay, adiga gay miyaa tahay, ayuu leeyahay. Cause maxaa yeelay, sababtoo ah, cause maxaa yeelay you are speaking, waxaad u hadlaysaa like a gay, sidii khaniis oo kale. Sidaa daraaddeed, I suspected you, waan bagaa shakiyay, are you gay, adiga khaniis miyaa tahay.
A ayaa soo boodaya. Aan kusoo celina B. First, before you abuse me, intaadani caynin ka hor, try to speak like as a gentleman. Isku day inaad u hadasho sidii qof akhyaar oo kale. Cause maxaa yeelay you are speaking waxaad u hadlaysaa like a gay sidii qof qaniis oo kale. So sidaa daraadeed I suspected you waan bakaa shakiye. Are you gay? Adiga qaniis miyaa tahay? A ayaa qaadanayo. Waxa uu leeyahay wuu iska indhatiraaba. Jumladan way ku anficaysaa haddii qof oo kula hadlayo oo hadalkiisa aadan rabin. Waxa uu leeyahay are you speaking to me? Aniga miyaad ila hadlaysaa? Or the one who is behind me, ama qofka gadaashayga jooga ayaad la hadlaysaa. Are you speaking to me? Aniga miyaad ila hadlaysaa? Or the one who is behind me, ama qofka gadaashayga jooga ayaad la hadlaysaa. Jumladaas aad ayay ku anficaysaa. Isku day inaad mar walba isticmaasho. Okay, B ayaa soo boodaayo. Waxa uu leeyahay don't beg me, beg Allah. Aniga ay baryene Allah bari. Don't beg me, beg Allah. Aniga ay baryene Allah bari. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa soo gaartay, waxaan filayaa inaad ka faa'iiday. Fadlan ha ka iloobin inaad saarto subscribe, like, aan commenti kusoo bixsid. Wixii su'aalaha commentiga ugu reebo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.